ergadii dhexdhexaadinta ee xiisada siyaasadeed ee Somaliland ka taagan ayaa bilaabay howlgalkooda dhexdhexaadinta kadib markii ay ku guuleysteen soo deynta siyaasiyiintii ka xidhnaa xisbiga mucaaradka ee wadani. ergadan oo madaxweyne bixiye xisbiyada mucaaradkuba siiyeen kalsooni buuxda oo ay ku bilaabaan dhexdhexaadin rasmi ayaa waxa ay la kulmeen xisbiyada mucaaradka iyo UCID iyo wadani, kuwaasi oo bandhigay mowqifkooda arrimaha khilaafka sababay. ergada ayaa waxaa la filayaa inay maanta kulan la yeeshaan madaxweyne biixi oo ay isna dhegaysan doonaan doodiisa, iyadoo la filayo inay ergadu markaas kadib go-aan ka soo saarto khilaafka siyaasadeed ee dalka ka taagan. bulshada reer Somaliland ayaa si weyn ugu dhegtaagaysa natiijada ay ergadu ka soo saari doonaan khilaafka siyaasadeed ee dalka ka taagan oo culays ku haya dhaqaalaha dalka iyo guud ahaanba xaaladda nololeed dalka. kooxdii u dhalatay dalka Imaaraadka Carabta ee toddobaadkii hore lagu qabtay madaarka Hargeysa ayaa dalka ka dhoofay Khamiistii toddobaadkan. kooxdan oo ay tiradoodu dhammayd 9 nin ayaa madaarka Hargeysa lagu qabtay kadib markii ay wasaaradda horumarinta deegaanku ku eedeysay inay ugaarsi sharci darro ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. waxaana warku sheegay in kooxdan loo ogolaaday inay dalka ka dhoofaan kadib markii ay bixiyeen lacag ganaaxa oo ay xukuumadda Somaliland ku soo rogtay. wararka qaar ayaa sheegaya in lacagtan ganaaxa oo wasaaradda deegaanku ay amartay ay ahayd $10,000.